Somaliland mandaqadan yar ee ku taala geeska Afrika waxay ka mid tahay meelaha ugu nabadda badan dunida inkastay ku xeeran yihiin dalal kale oo gubanaya misana waxa muuqata isku tashiga iyo dadaalada hore u socday halkan ka jira inaan dunidu weli garowsan ku sinaan 30 sano ayay jirtaa shan madaxweyne oo soo marayna waxa nidaam kasta ku yimid si xor ah hal qof iyo hal cod kaas oo ka dhigaya mid ka duwan dalalka kale ee qaaradda madow ku wada yaalaan November sanadii 2017 ayaa madaxweynaha haatan mudane Muuse Biixi Cabdi loo ogtay madaxweynaha shanta sano ee ilaa 2022 madaxweyne Biixi waxa uu ka hor doorashadiisa barnaamij siyaasadeedka xisbiga lagu dhigay 7 tiir oo waaweyn kuwaas oo wajahayo muddada shanta sano ee xukunka hayo si wax looga qabto dabayaaqadii December 2017 kadib markii uu xilka la wareegay waxa uu madaxweynuhu soo dhisay xukuumaddiisa uu markaasi dhiig cusub ku shubay mid ka mid ah hay'adihii dawladda wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka ayaa laba loo kala qaaday waxaana madaxweyne Biixi xeer ku aasaasay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka taas oo ay hoos imanayso sidoo kale wakaaladii horumarinta wadooyinku kolkaasi dabadeed Cabdullaahi Abakar Cismaan ayaa loo magacaabay wasiirka cusub ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Somaliland dhismaha wadooyinku waa kuwa ugu muhiimsan ee kaabayaasha dhaqaalaha waxaana xukuumaddu doorkeeda siisay sidii dalku isku xirmi lahaa Sanaag oo ah gobolka ugu baaxadda ballaaran Somaliland waxa uu ka xidhnaa dalka intiisa kale waxaana uu gobolkaas facaweyn jaal ahaa go'doon cirka dhulka iyo waliba badda mudaxilaadka xisbiga talada haya ee kulmiye ayay la kowsatay in markan Sanaag cagta saarto toobiyaha hor u socodka waxaanu gobolku helay dariiq laami ah oo isku xidha dalka intiisa kale kaas oo uu kaga baxay rafaadkii muddada dheer loo mari jiray in ay badeecadaha iyo waliba adeegyada kala duwan ee loo soo doonto Burco iyo Berbera ay sii maraan habeendax iyo waliba dhiidhi marka roobku daa wallahi wadadaas markaan aad iyo aad uga warramo aad iyo aad inka weyn baanahay dhibaatada iyo wixii halka ka jireen waan ogaa gobolka Sanaag oo dhan baaba ku badhaaray gobolka Sanaag oo dhan ayaa ku badhaaray gobolkan waxa gobol ka go'an gobolada kale himilada dhismaha dariiqa Ceerigaabo oo uu ka xisbiga talada haya ee kulmiye waxay ahayd ku dhac dadaal u baahnaan furkaasi oo maxsuulkiisa maanta Sanaag u ayday bari hore silcina laga haysan jiray ceelaf weyn ilaa Ceerigaabo waa 9 kiiloomitir waxaan socon jiray 9 saac ugu yaraan iminka waa aragtay waxaan soconayaa nus saac nooca kale ma baahindis jirin bari hore oo wasaad dirano mana gobolka ma joogin gaariga ugu yar gawaarida socda waxa gaariga calawga oo isla silc ku mara gaari weyn oo tacadiya oo libaato ka raacdo halaagma ma mar jirin hada si ilaahay ma hadisuu waa ka nus saac sal ku soconaya yar kiga saaw direeraya marka waxaan ma naqaynaa wasiirka iyo Cabdullaahi Abakar iyo cidii shaqada keentay iyo cidii faraha ku hayso ka shaqeynaysa imika aad iyo aad baan bogaadinay mashruuca wadada Ceerigaabo oo ah kan ugu weyn ee dalka ka socda waxa maalgelinaysa xukuumadda waxaana fulinaysa wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Somaliland oo kaashanaysa wakaaladda horumarinta wadooyinka oo hoos tagta wasaaradda geedi socodkayga shaqooyaalkay marayso iminka waa arkaysaa in shaqadii way socotaa waxa isku xidhmaya dhawaan
degmada Celifweyn iyo degmada Garadag oo iminka ay isu jiraan in labada gamcood iskaadhaan ama aan idhaahdo labada sayd ay isaga gurmadaan waxaa sanadka cusub ee 2020 qorshaha ku jira oo in buundooyinkii la dhisi doono oo lagu dhisi doono min Ceergaabo ilaa iyo 164 structure ah iyadoo ay ku jiraan buunda chiefkii culvertskii iyo bridgeskiiba waxaa socda oo ay noqonaysaa degmada Garadag iyo Celifweyn degmadii 10aad ama 11aad aan idhaahdo oo isku xidhanta dhammaan guud ahaan Somaliland magacaygu horta waa Injineer Axmed Maxamed Cali goobtan aan ku suganahay waxa weeye sayidka Garadag waxaan wadada uga wadnaa xagga bariga wadadani waa wadadii u dhaxaysay Garadag iyo qaybta Fadhigaab muddo kastaba ha nagu qaadatay waxa muhiima inaanu ka tagno wada tayo leh wadada oo raandiskeedu shaqaynayo muddo wanaagsan insha Allah bulshada way noo yimaadeen qaybtii buundooyinku waxay noo yimaadeen berbera 17 container baa noo yimi 17 container haddii ilaahay yiraahdo sanadkan gudihiisa baanu bilaabaynaa qaybihii biyo mareennada ahaa 2 sano ka hor wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku waxay la wareegtay dhismaha wadada Ceerigaabo oo ay dhisan tahay kaliya 94 kiiloomitir waxaana muddadaasi dhismay 101 kiiloomitir taasoo ka dhigan inay dhisan tahay 195 kiiloomitir dhismaha wadada Ceerigaabo iyo Burco oo noqonaysa 274 kiiloomitir 2 sano oo kaliya ayaa wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku oo kaashanaysa wakaaladda horumarinta wadooyinku ku dhamaystirtay 101 kiiloomitir taas oo ka dhigan in dhismaha wadada Ceerigaabo oo dhan 195 kiiloomitir celcelis ahaan uu 70% suura galay labadii sano ee u dambeeyay dhismaha wadada Ceerigaabo ayaa 2 sano kadib sidoo kale gaadhay markii ugu horeysay isku filaansho rasmi ah waxaana meesha ka baxay qalabkii iyo gaadiidkii shirkadaha kirada qaadan jiray ee ka hawlgelayay dhismaha jidka wadada Ceerigaabo ilaa Burco mashruuca Ceerigaabo Burco waa waxa uu gaadhay isku filaanshiyo 100% waxa imika dhammaan wixii qalab ay u baahnaa mashruucaasi waa loo soo iibiyey waxaanu soo iibsanay ku dhawaad qalab $1 milyan gaadhaya 18 shay baanu soo iibinay oo leh oo u badan heavy duty maaha gaadiidka yaryar marka runtii waxaa ka mid ah karasharo waxaa ka mid ah bulldozers waxaa ka mid ah iskarooyinka kuwa weyn dump trucks 16 kilomitir kiiba waxaa ka mid ah graders waxaa ka mid ah rollers marka runtii mashruucaasi imika 100% dawladda gacanta ku haysa waxaan soorshina amba waxaan soo karaysanaa aanu kara ka bixinaa totally imika ma jirto 100% mashruucaasi isku filan yahay markaanu nabid xafiiska ku dhawaad bishii waxaan bixin jirnay ilaa $128 kira ah lacagtaan ku soo iibsanay lacag meel kale nooga timid maaha bangiga maan ka qaadan lacag maalgelina ka bacdina lacagtii man dib ugu celin jiray kirada lagu bixin jiray marka runtii deemka waa asad qaranka u haraayeen kaabayaashii nolosha deegaanka ayay wax weyn ka bedeshay waxaana sanaag 50 sano kadib ku xidhmaysaa dalka intiisa kale waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa waxqabadka ka socda sida wadada aniga oo meesha mari jiray oo 3 habeen iyo 3 maalmood u soo socon jiray Hargeysa iyo halkan maantana aan gaari yaro grandaa ku yimid kaabayaasha degmadu magaaladu intii aanay wadadu marin aqalada ay igu soo jeedaa ma dhisnayn ma ahayna inta yar bay labada liiqayeen maantana laba wadaaba dhex mara waynu garan karnaa qiimaha ay wadadu leedahay wadadan intii la bilaabay waxa soo noolaatay rajo weyn oo u soo noolaatay gobolka Sanaag kaliya ma ahay Soomaaliland oo dhan dhinaca caafimaadka dhaqaalaha isgaarsiinta intaba wadadu waxay ka qaadatay wax aad iyo aad u wanaagsan wadadu waana nooga raysay waana nooga raynaysa wax weyn bay noo kordhisay waxa uu kaaya xadhmay muwassalaadkii Hargeysa laga qadeeyaa hadda Hargeysa qofka hadda ka taga halkan Hargeysa galka dambe ka qadeeya
war ma garana ceer gaabana waa u shaqo tagnaaba alxamdulilaahi rabbilcaalamiin dhanka kale sanaag ayaa haatan helaysa marinka isku xidha magaalooyinka ceerigaabo iyo maydh ee tabca wasiirka gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka Soomaaliland oo fulinaya ballanqaadkii madaxweynaha iyo siyaasadda xukuumadda ayaa soo dhagax dhigay wadada dawga tabca intaba waxaan ku soo dhaweynayaa halkan waana fursad aad u qaaliya in ay wadadan maanta naloo dhagax dhigo waa fursad wax weyn noo taraysa dee waddadii dhagax dhigta ee biyahana noogu soo dara wasiirka waddooyinkana waddadan tabca waa waddadii siyaad waddadii labaad ee waqooyi bay ahayd gobollada waqooyi waddadii labaad bay ahayd runtii dawladda Soomaaliland way dayacday berigoo hore wax la karaash borigaran bay lahayd yeelkeeda amarka ilaah baa haya waxaanu kaga gamaynaa waddadan Ceerigaabo ee dheer ee Ceerigaabo soo gashay ee laamiga ayaanu kaga gamaynaa waddadan waa waddada isku xidha ilaa iyo laasqore ilaa iyo karin berbera waa wadda dhuun ah waa wadda aad wa tabca bay ku taallaa haddaad maanta dhagax dhigtay wasiir waxa weeye waanu kugu soo dhawaynaynaa maanta waxaan joognaa tuulada karin waddada sabca afkeedii maanta waxaynu dhagax dhigaynaa waddadii waxaynu ku bilaabaynaa 200 oo ah kashfar wareeg maadaama wasiirkii nala joogo horumarinta waddooyinku waxaan filaynaa mar haddii la bilaabay wasiirku inuu halkaa ka wadayo insha allah maanta waxaynu dhagax dhigaynaa karin dawgii ay ka bilaabmaysay waddada tabca oo isku xidha maydh ilaa Ceerigaabo markii ay waddadan fureedii hagaagsanayd boosaasane ma jirin meel kaloo bariyo wax laga soo qaadana ma jirin dekadda shaqaysa taa maydhuun bay ahayd ugu xoog badan maantana waa aragtaanoo ka guureen bay noqotay laba sababood weeyaan waa wadda xumo oo waddadii oo naga xumaatay iyo baddii oo naga xidhan waxaanu rajaynaynaa baddii qayb waynu furannay qaybta dambana waynu soo furan doonnaa insha allah salaan kadib runtii waa noo farxad annaga haddaannu nahay wasaaradda iyo hay-addaba inaannu maanta u joogno munaasabaddan aan ku dhagax dhigayno waddadii tabca qaybta karin xigta runtii annagu waa shaqadayadii waxaan leeyahay guddoomiyaha iyo meeyarkaba aad iyo aad baad mahadsantihiin xilaannu lahayn baad noo fududayseen annagana waxaa nagaga aadan waxa weeyaan sida uu sheegay guddoomiyuhu aqoon ahaan iyo farsamo ahaan inaannu idin caawinno aniga runtii hamigaygu wuxuu ahaa waddada Ceerigaabo iyo in la israaciyo waddada maydh in la israaciyo hamigaygu ahaa gobolkii baddiina uu ku xidhmayaa gobolladii kalena Soomaaliland uu ku xidhmayaa mashaariicaha dhanka horumarka ee sida oo kale tis qaaday waxaa ka mid ah dayactirka waddada Hargeysa Kalabaydh oo dhan 60 kiiloomitirkaasi oo ay maalgelinayaan midowga Yurub Jarmalka iyo weliba wakaaladda waddooyinka Soomaaliland dariiqa isku xidha Hargeysa ilaa Kalabaydh oo ah marin muhiim ah ayaa rafiiq la ahaa muddo dheer dayactir la'aan kaasi oo sababi jiray shilal joogto ah oo gaadhay heer gaadiidka yaryar ee ku safraya ay ku dhibaatoodaan waddo asfal ah ayaa la dhigayaa sida oo kalena waxaa socota calaamadaynta waddada taasi oo looga gol leeyahay in la xadido xawaaraha gaadiidka iyo sida oo kale hagistooda si loo yareeyo khasaaraha iyo halista shilalka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo ka duulaysa in la helo dariiqyo laami ah oo tayo fiican leh ayaa mashruucan kor joogtaynaysa waxa uuna ku dhow yahay gabagabo madaxweyne mashruucan waxaa iska kaashanaya midowga Yurub iyo dawladda Jarmalka dawladda Soomaalilandna waxay bixinaysaa 10% ayay bixinaysaa
mashruucan ku talgelkiisu waxa weeyaan inaynu bisha July insha Allah soo gabagabayno inaan u mahadnaqo GIZ iyo midowga Yurub sidoo kale aan aad iyo aad u bogaadiyo shaqaalaha wasaaradda shidadka iyo gaadiidka wasiirka iyo maareeyaha injineerada iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda waxaan ku bogaadinayaa hawsha culus ee qaranka u hayaan waxaan idinku bogaadinaynaa tallaabada ka qaadeen iyo hawsha ka qabateen jidka Ceergaabo Burco oo runtii aad iyo aad wax lagu dirsaasa hawsha uga wadaan waxaan idinku bogaadinaynaa sidii aad uga hawl gasheen dabayshii Saqar ama duufaantii jidadkii iyo dooxyadii ay samaysay sidii degdega ahayd ee uga hawl gasheen dhalinyarada injineerada ah shaqadoodii imika markii ay bilaabay dibjirka iyo miyiga iyo dabaysha iyo dhaxanta ee laga yaabo intii hore noloshooda dhanba inaan miyi arag waxa iyaduna dee bogaadin mudan hablaha injineerada ah ee laamida cayada taagan iyaguna waa bogaadinayna berbera corridor ayaa ah mid kaloo ka mid a mashaariicaha horumarineed ee mugga weyn ee ay gacanta ku hayso wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka waxaana caawinaysa dowladda imaaraadka carabta dhismaha shaqada dariiqan ayaa soconaysa waxaana loo wajahayaa hannaan caalamiya oo kolka aad aragto yaqiinsanayso tadawurka dhanka dhismaha waddooyinka iyo farsamada caalamka sida ay ula tallaabsatay Somaliland sidoo kale waddadani waxay meesha ka saaraysaa dhibaatooyinkii rubuc qarniga qarankani jiroba lagu qabay dooxyada inta u dhaxaysa Berbera ilaa Hargeysa farsamo yaqaanada waddaduna waxay qiimeyn ku samaynayaan dooxa Dacarburuq wejiga koobaadna waxa jidkan loo qoondeeyay 160 kiiloomitir halka 12.3 mitir oo ballac ah iyo 39 sentimitir oo hoos loo qodayo iyadoo la banaynayo oo meesha laga saarayo waddadii hore dhererka waddada Berbera corridor ayaa dhan 241 kiiloomitir marinkan isku xidha Berbera iyo Wajaale oo ah mid ganacsiyeed muhiima waxa uu doorkiisa ka ciyaarayaa inay Somaliland soo jiidato indhaha caalamka waddada la yiraahdo Berbera corridor Hargeysa Wajaale runtii waa mashruuc ballaaran waxaan jeclahay halkan inaan ummadda Somaliland aan u bayaamino mashruucaasi sidii qorshe u ahaa waxaan rajaynaynaa bisha shanaad ee 2021 inuu dhammaado shaqadu way socotay imika muddo 6 bilood ah shaqada waxa laba wadda jiraayo waddadu maadaama ay tahay waddo Irmaan waxa khasaba in waddadii la mari lahaa ee diversion roadka ama detourka in la dhiso marka muddada imika 4 bilood ugu dambeeyay waxa la dhisay detourka imika ilaa iyo Berbera waa la dhamaystiray imika sida injineer Taysir noo sheegay waxaan rajaynaynaa January 10 kiiloomitir ugu horeeya u dhamaystirmo waxaana standardka caalamiga la raacinayo waa roadkii iyo calaamadihii iyo road safety sababta dawladda Soomaaliya waxay qaadatay waddo kasta la dhisayo in xaqii badqabkana la raaciyo si ay nooga yaraadaan shilalka gaadiidku bariishkii kalena insha Allah way noo socdaa annaga halkan waxa ka jooga 6 injineer oo wasaaradda ka tirsan oo hablahani ka mid yihiin iyo markaa kuwaasina inta badan waxay qabtaan shaqo routine oo ay kolba hubinayaan quality la dhisayo runtiina Somaliland xagga quality-ga wax compromise ka sameyn mayso waxaan jeclahay insha Allah kullu shaqadu waa bilow ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaynu arki doono dhawaan waddadaas oo dhisanta xilli inaga waxay naga saarayeen inaynu dayactirno qorshaha wasaaradda 2020 waxa ka mid ah la sameeyo waxa loo yaqaan weight bridgeski oo miisaan badan oo miisaan ka saayid aana waddadii nagaga dhicin marka waxaan haysanaa in la laashano insha Allah anaguna waxaan dhisi doonaa meelii raamabkii la saaray gaadiidka Itoobiyaanka sidoo kale waxaan dhisi doonaa weight bridge-yadii miisaanka culayska gaariga lagu saarayo wasaaradda damaanad qaadaysa inta ay qabato qabasida dhowr ilaa ay horumarka ku dhaboobay dhaqaaqee tallaabo qaaday darar baxariibtiisu aday dheefku wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland
iyo wakaaladda horumarinta waddooyinku iyagoo kaashanaya bangiga horumarinta afrika waxay qorsheeyeen waddo laami ah oo isku xidhaysa lowyacaddo fardaha ilaa boorama 300 kilomitir ayaa lagu qiyaasay cabirka waddadan waxaana dhagax dhigay wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo ay wehelinayaan koox khubaro ah oo ka socota bangiga horumarinta afrika dhismaha jidkani waxa uu ka mid yahay ballanqaadyadii lagu dhigay barnaamij siyaasadeedkii xisbiga kulmiye waxaana ibafurkiisu muujinayaa in wasaaraddu haatan ka duulayso hirgelintiisa taas oo albaab kasta u garaacaysa sidii dalka la isku xidhi lahaa isku xidhka dalka ayay doorkiisa ciyaaraysay wasaaraddu sanadkii galbaday 2019 waxaa kaloo horumarada suura galay safka hore kaga jira dayactirka biriishyada dubur ilaa kala jab kuwaas oo muhiim u ahaa isu socodka dalka biriishka dooxa dubureed ee u dhow magaalada Shiikh ayaa ka dalooshamay 2 meelood oo dusha sare ee shubka ah waxaana dhibkan uu rafiiq la ahaa tan iyo 2016 hase yeeshee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ayaa waajahday waxaana dib u habayn lagu sameeyay biriishkaasi sidoo kale wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku iyadoo kaashanaysa wakaaladda waxay joogtaysay dayactirka buurta Shiikh taas oo u baahan ka warqab mar kasta waana markii ugu horeysay ee sidan oo kale wasaaradda ku shaqo leh wadooyinka wax uga qabato buurta Shiikh inta isku xidha jaamacadda Camuud iyo Boorama ayaa yeelatay biriish kadib markii madaxweynaha Soomaaliland oo halkaasi ku safraya uu soo arkay rafaadka ay ardayda iyo gaadiidkoodu u maraan wadadaasi waxaana soo dhagax dhigay madaxweynuhu waddo biriij ah oo uu maalgelinayo taasoo ay fulinayso wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo wakaaladda horumarinta waddooyinka Soomaaliland biriishkaas oo dhammaaday dabayaaqadii 2019 sidii uu qorshuhu ahaa waxa cabirkiisu dhan yahay 28 mitir oo dherer ah iyo 10 mitir oo ballac ah annaga farxad markoobaad iyo mar labaad waxaan maalintii aad ku dhawaaqday iyadoo aan cidina aanay ku weydiisan iyadoo iskuula jaamacaddu waad ka baxday dabadeedna dhibaabaheedii aad ogey darteed waxaad tidhi maanta biriiskaasaan dhagax dhigaya kagamaad hadha inaad lacagtiina waad bixisay waa kaasoo wuu noo dhammaaday waa wax lagu faanayaa oo haddaannu gobolka awdal nahay dhammaantii aannu ku faanaynaa runtii waa biriish wax weyn ka anfici doona isu gudubka iyo isdhexmarka jaamacadda iyo degmada ama magaalada Boorame waa biriish ugu fadhiya ahmiyad weyn guud ahaanba qaranka waa biriish runtii aad iyo aad hawl weyn u gashay ugana socoto waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad uga mahad celinaynaa madaxweynaha oo deeqda lacageed oo lagu dhisayo bixiyey waddada Billigubadle ilaa Hargeysa oo ah mid muhiim ah oo ay gacan ka geysanayaan dadka deegaanku ayaa xukuumadduna door laxaad leh ka ciyaaraysa wasaaradda iyo wakaaladda ayaa qarashkeeda bixinaya 13 kilomitir oo carrakaawo ah sidoo kalena waxay wakaaladda horumarintu ku caawinaysaa dhismaha jidkan qalab gaadiid iyo shidaalka hawlgalka waxaana ka shaqaynaya gaadiidka shaqada iyo hawlwadeennada wakaaladda wajaale ilaa kala baydh oo ay saameeyeen gaadiidka xamuulka sida ee waddadaasi isaga kala goosha Hargeysa iyo Salaxley waddada cad Laascaanood iyo Burco inta u dhaxaysa ayaa iyaguna ah kuwa horumarku ka taabagalay waxaana wasaaraddu ku samaysay dhisme iyo dayactir la kowsaday 2 sano ee uu xilka hayay wasiir Cabdilaahi Abukar Cismaan markii ugu horeysay siyaasadda gaadiidka dawladda ayaa la dejiyay hubinta tayada badqabka gaadiidka iyo xeerka gaadiidka badda ayaana la unkay sidoo kale xeerka wadda marista qalabka xadidida xawaaraha gaadiidka iyo kala socodka gaadiidka dawladda ayaa la sameeyay waxaana wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku iyadoo ka duulaysa duruufaha dhaqaale ee hadheeyay dhismaha waddada Cerigabo ay hindistay in banka Soomaaliland si maalgeliyo qalab iyo gaadiid lagaga shaqeeyo waddadaasi waxaana ay soo iibisay iyadoo raacaysa nidaamka iibsiga macdaadka loo maro si waafaqsan xeer lambar 28/2018 xeerka qandaraasyada qaranka iyo siyaasadda gaadiidka dawladda ee lagu ansixiyay kalfadhigii 22aad ee golaha wasiirada qodobkiisa 3-1-2 oo waafaqsan qaabka iibsiga gaadiidka dalka dabadiisa gaadiid kala duwan oo kala ah hal booyad oo kuwa daamurka ah 2 booyadood oo nooca biyaha ah mugooduna yahay 20 mitir kiyuubig hal booyad shidaal 5 iska rogo oo mugoodu yahay 24 tan 2 cagaf gareydhar hal karasharka guurguura ah
hal roolar 3 konteynar oo shaqaaluhu seexdo midna xafiis yahay mushiin laydh hal cagaf baldowsar oo ah nooca AD ee waaweyn tayaynta shaqaalaha ayuu awoodda saaray wasiirku waxaana wasaaraddu furtay dugsiga tababarka wadayaasha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka sanadkii galbaday ee 2019 kuma sidkano oo keliya guulaha u soo hoyday intani ee waxaa ugu dambayn wasiir cabdilaahi abakor aan weydiiyey qaybo kale oo ka mida hiigsigiisa sannadda 2020 ee wasaaradda dollar ka dhigo sanadkan 2020 wuxuu noqon doonaa sanadka ugu wanaagsan insha Allah saan la ka rajeynayno Soomaaliya xagga kaabayaasha dhaqaalaha ma wadooyinka qura warjeeyna waxa aad ogtay si fiican inay noogu socoto dekadii balbara ismahayga DB wala wado waxa kaloo insha Allah idin la rajeynay sanadkan jitigi amba dekadii yarayda mayd inay dhisanto insha Allah waxaan ka rajeynaynaa mashruuca airport-ka baraliftiisana in wax laga qabto airport-ka Ergaabo laftiisana waa la soo dhagax dhigay wadaagtihiin alxamdulillah taas waa mashaariicda xagga airport-da iyo dekadaha intaana wax isku xidho wadooyinka imka waxaanu sanadkan insha Allah noo qorsheysan 2020ga 60 kilomitir oo wadada Ergaabo burco in la dhiso waxa kaloo idana kamid ah in dhowr 250 biyo mareen amba kala fatis loo yaqaano oo bira ah la geliyo wadada sababta wadada ceebta weyn ee lahayd waxa weeyaan biyo mareenadii oo aan dhisnayn marka insha Allah sanadka qorsheyn ugu jirta waxa iyada lafteeda ogtina inoo socda mashruuc weyn ee barbar corridor dawladda Imaaraadku ay naga caawinayso sidoo kale insha Allah sanadka waxaan rajeynaynaa in mashruuc 22 kilomitir ee bara laga dhisi doono magaalada Hargeysa oo loo yaqaan Hargeysa bypass asoo qorshu yahay in isagana sanadkan gudihiisa la bilaabo processkii bidinkana uu socdo imka waxaan rajeynaynaa in hawshaas ina dhaqso inoogu bilaabanto waxa socdo inoo socdo imka mashruuca dawladda Jarmalka midowga Yurub iyo Soomaaliya iska kaashadeen Hargeysa Kalabayd oo imka dhowr iyo 40 kilomitir la dhisay insha Allah sanadkan dhow waxaan rajeynaynaa in mashruuc weyn oo ah burco iyo berbera la dhisi doono oo ka maalgelin doono sanduuqa horumarinta Soomaaliland ay ka mid yihiin Shambridge oo la dhisi doono insha Allah dollar ka dhigo waxaan iyadana daraasadeed imka la bilaabi doono bisha labaad wado ilaa 200 ilaa 300 280 ilaa 300 kilomitir noqon doonta oo ah wadada isku xidhaysa Looyacado fardaha ilaa Boorame waxa kaloo iyadu lafteeda aan insha Allah rajeynaynaa in aanu wadada burco laascaanoodna hay'adda iyo wasaaradda ay ka sameyn doonaan sanadkan qorshaha miisaaniyadana noogu jirta aanu sameynay in wax laga qabto burco iyo laascaanood wadada Chinese noo dhisay ayadana insha Allah rajeynaynaa wado Hargeyga rool ay dhacdo oo laascaanood laga dhisi doono iyadoo nawanaysa jidcada in la dhiso waxa inta inoo dheer 7 wado oo ay community gacanta ku hayaan waniga laftooda budgetna ugu talagalay taageero farsamo iyo meedeen qalabna aanu siino oo ah ku yaala gobolada Awdal Baroodijeex Togdheer iyo gobolka Saraar marka runtii intaasoo wadooyin imika waxna qacantan ku haynaa waxna waa wax imika beebka ku soo jiro aad iyo aad u dhow sanadkan 2020 oo qobadkooda la qabto